xogo la helay ayaa waxa ay sheegayaan inay jiraan cabsi aad u xoogan oo ku saabsan in dhawaan magaalada Laascaanood uu ka bilowdo wajiga saddexaad ee dagaalka u dhaxeeya Somaliland iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaana qorshaha ugu weyn uu ka socdaa dhanka magaalada Hargeysa ila lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu diyaarinayo guluf xoogan oo lagu qaado magaalada Laascaanood wuxuuna dhagaha ka furaystay dhammaan baaqyada beesha caalamka kulamo 24 saac la soo dhaafay ka dhacay madaxtooyada Hargeysa ayaa looga hadlay sidii loo qaadi lahaa dagaalka madambeesa waliba waa wajiga saddexaad kaasoo lagu soo afjaraya dagaalka socda in ka badan 10 toddobaad saraakiisha militariga Somaliland ee kulankaasi ka qayb galay ayaa u sheegay madaxweynaha in kaliya haatan ay sugayaan amarkiisa isla markaana ciidamada ay heegan buuxa ku jiraan una diyaarsan yihiin in weerar xoogan la qaado madaxweyne Biixi ayaa marar badan la sheegay inuu isku dayay inuu bixiyo amarka kama dambeesta ah hase ahaatee la taliyihiisa dhanka ammaanka ayaa dib u dhigay sabab la xiriira qiimeyn cusub oo lagu sameeyay jihada dagaalka iyo sida weerarka loo qaadi karo la taliyayaasha qaar ayaa soo jeediyay in weerarkan la qaado maalinta labaad ama saddexaad ee ciidda halka saraakiisha qaar ay sheegeen inay haboonaan lahayd in weerarkaasi qaadaan ka hor ciidda walow aanay suuragal ahayn sidoo kale xogta aan helay waxay sheegaysaa in madaxweyne Biixi u sheegay saraakiisha ciidamada in nabad buuxda la siiyo shacabka ku dhex jira dadka dagaalamaya sidoo kalena aanu dooneynin in dhibaato kale la soo gaarsiiyo magaalada inkastoo dagaal haddii uu bilowdo aanay rasaasta kala aqoon shacab iyo askari dagaalamaya haddana saraakiisha hogaaminaysa militariga Somaliland waxay u sheegeen madaxweynahooda inay ku dadaali doonaan shacabka inta ku harsan Laascaanood inaan dhib la soo gaarsiin geesta kale waxgaradka ACC ayaa iyagana wada dadaal xoogan oo ay ku xoojinayaan ciidamada deegaanka ee difaacaya magaalada Laascaanood waxaana maalmahan hub iyo ciidan baa la keenay magaalada kuwaas oo xilli walba diyaar u ah inay dagaalamaan oo ay difaacaan Laascaanood xogaha soo baxaya waxay sheegayaan in wajiga saddexaad ee dagaalka Laascaanood uu aad uga duwanaan doono kuwii hore u dhacay haddii aanay isbedelo kale oo degdeg ah imaan ka hor bilaabashada dagaalkan mid ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Laascaanood waxa uu u sheegay warbaahinta in mar walba diyaar u yihiin inay isdifaacaan sidoo kalena diyaar u yihiin inay wada hadal galaan haddii ciidanka Somaliland laga dulqaado Laascaanood oo la geeyo og isimada ayaa sheegay in mar walba Somaliland ay weerar ku soo tahay Laascaanood walibana ay dhagaha ka furaysanayaan beesha caalamka oo dadaal ugu jirta sidii colaadda lagu soo afjari lahaa waxayna sheegeen in madaxweyne Biixi kaliya ku qanco in la dagaalamo si loo laayo reer Laascaanood waa sida hadalka u dhigeen mar ay waxgaradkani ka jawaabayeen qoraal ka soo baxay beesha caalamka oo lagu la hadlayay dhinacyada isku haya magaaladan waxa ay sheegeen in Somaliland aanay u soo jeedin nabad iyo wada hadal inta ciidamadeeda ay ku sugan yihiin magaaladan Laascaanood nawaaxigeeda beesha caalamka waxay u soo jeedisay madaxweyne Biixi in ciidanka Somaliland laga saaro hareeraha Laascaanood balse Somaliland ayaa taasi ku jawaabtay in marka hore ciidamada Puntland isaga baxaan magaaladaasi geesta kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa isna ku celcelinaya in mar walba ciidankiisa heegan ku jiraan oo haddii waxgaradka Laascaanood dalbadaan in gurmad la siiyo ay aadi doonaan magaalada Laascaanood iyo meel walba oo lagu dhibaateynayo shacabka ACC waa sida uu hadalka u dhigay falanqeeyaasha amniga waxay sheegayaan in haddii dagaalka Laascaanood sidan ku sii socdo arinta isku bedeli karto waji kale oo ah in dagaalkaasi uu u dhaxeyn doono Somaliland iyo Puntland daawade maxay kula taaragtidaada fadlan qaybta hoose commentiga noogu reeb muuqaalka share garee si uu dad badan u gaaro mahadsanid